ciyaartii maanta galay dambe ka bilaab garoonka ciyaaraha ee kubadda cagta ee Hargeysa Stadium ayaa galabta ku soo dhamaatay natiijo la'aan iyo waliba sidoo kale labada dhinac aan wax natiijo halkaasi kala tagin kadib markii garoonka ay ciyaarta daqiiqadihii ugu dambeeyay halkaasi ka dhacday foodo iyo waliba sidoo kale iska horimaad ka dhexdhashay ciidamada bilayska iyo taageerayaasha gobolka Hawd ciyaarta oo ahayd ciyaar dardar iyo waliba sidoo kale xamaasad xoog leh ahayd isla markaana ka duwaneed ciyaarihii hore ka dhacay garoonka Hargeysa isla markaana ay ka soo qayb galeen madaxda gobolada Daadmareer iyo sidoo kale waliba Hawd iyo shacabweynaha kala duwan ay ka soo qayb galeen ayaa ciyaartaasi waxa ahayd mid adag oo labada kooxood isku mari waayeen labadii haaf ee ciyaarta iyadoo ciyaarta ku soo dhamaatay eber labada dhinac kastaba isagoo wax natiijo ah keensan isla markaana wax gool aan dhashan labada kooxood ayaa koox kastaba kooxda kale waxay ka dhaarisay isla markaana u diiday inay ciyaar kaga dhaliyaan wax gool ah iyadoona koox kastaba difaaceeda iyo weeraradeeda ay xoojinayso iyo waliba sidoo kale goolhayahooda oo koox walba dadaalaya isla markaana labada kooxoodba ay goolal badan oo kooxda kale ka qabatay ay jirtay ciyaarta markii ay ku soo dhamaatay labada dhinacba wax natiijo la'aan ayaa garsoorayaasha ciyaarta dhexdhexaadinayay iyadoona garsoorayaasha ciyaartu ay iska afkarteen in min shan goole oo la toos ah loo dhigo koox walba balse labada kooxood ayaa haddana wax natiijo ah kooxna ka keensan garsoorayaasha ayaa mar kale go'aamiyay in min halaad u laado kaasoo lagu kala saari lahaa balse gobolka Hawd ayaa markii ugu horeysay ku laatay shabaqa gobolka Daadmareer iyadoona halkaasi goolhayaha gobolka Daadmareer iska difaacay kubadii laadka tooska ahayd ee ku soo laaday mid ka mid ah ciyaartooyga gobolka Hawd xulka gobolka Hawd ayaa ka biyadiiday natiijadaasi iyaguna sheegay inuu goolhayuhu ka soo baxay birta ama calaamada loogu talagalay in samarkaana uu kubadda ka horyimi waxaana halkaasi ka dhashay qalalaase iyo foodo ka markaana garsoorayaasha ay go'aamiyeen in ay goolkaasi u yahay isla markaana gobolka Hawd laga qabtay goolkaasi balse ciyaartooyga gobolka Hawd ayaa diiday inay aqbalaan natiijada ciyaarta ay garsoorayaashu go'aamiyeen iyadoona halkaasi mid ka mid ah ciyaartooyga gobolka Hawd u ribaaxay mid ka mid ah garsoorayaashii ciyaarta dhexdhexaadinayay waxaana halkaasi ka bilowday qalalaas iyo foodo ciidamada goobta ku iyadoona maanta tiradii ciidan ee ugu badnayd ee booliiska la geeyay garoonka ciyaaraha ee Hargeysa Stadium iska horimaad u dhaxeeya ciidamada booliiska amniga sugayay iyo sidoo kale waliba taageerayaasha xoogga badan ee gobolka Hawd oo garoonka aad uga buuxay waxaana bilaamatay dhawaqa rasaasta iyo waliba sidoo kale dhagax tuurka iyo wax kasto qof kastaba awoodaya inuu tuuro ciidamada bilayska ee garoonka ku sugnaa isku dayay inay badbaadiyaan xulka gobolka Daadmareer oo ay uga baqeen in lagu qaado weerar isla markaana kooxdii la ciyaaraysa iyo waliba taageerayaasha gobolka Hawd ay uga baqeen iyadoona goobta laga saaray iyagoo ku gaashaaman gaadiidka ciidamada booliisku ay wateen waxaan halkaasi ka bilowday foodo iyo waliba qalalaase ay booliisku xakameyn kari waayeen ciidamadii ugu tirada badnaa oo intii ciyaaraha Soomaaliland ay socdeen sanadka 2020 la geeyay garoonka ciyaaraha ee Hargeysa Stadium ayaa kadib markii boqolaal ka tirsan taageerayaasha gobolka Hawd ay soo goosteen xarkaha halkaasi soo dhamaatay ciyaartaasi natiijo la'aan iyadoona aan loogeyn ilaa hadda la go'aamin karin kooxda badisay balse gobolka Daadmareer ayaa isku sharaxaya inuu isagu qaaday isla markaana uu guuleystay taageerayaasha ay waliba sidoo kale kooxda xulka gobolka Hawd ayaa diiday natiijada sheegashada ee gobolka Daadmareer sheegtay inuu qaaday koobka isla markaana uu ka badiyay xulka gobolka Hawd caawaya garoonka magaalada Hargeysa oo ay shacabka taageerayaasha xulka gobolka qabsadeen iyadoona la sheegay in wadooyinka garoonka soo galo ay qayb ka mid oo badan ay ku gubeen shaagag ilaa hadda ma jirto wax dhanka ciidamada ammaanka iyo kuwa booliiska ay halkaasi gaaray siday wararku sheegayeen isla markaana fiidkii hore ayaa shacabku garoonka gacanta ku hayay markii ay ku qanci waayeen taageerayaasha iyo xulka gobolka Hawd iyo taageerayaashoodu natiijada ciyaarta foodada ka dhacday iyo waliba sidoo kale iska horimaadka galabta ka dhacay garoonka Hargeysa Stadium ayaa waxa uu sababay ilaa iyo 10 ruux dhaawaca soo gaaray isugu jira ciidamada amniga sugayay booliiska iyo waliba shacabka halka ku sugnaa qaybihiisa kala duwan xul ee labada gobol kala matalayay mid walba uu dhankiisa si gaar ah u hadlay warbaahinta iyadoo Daadmareer sheeganayso guusha halka gobolka Hawd uu sheegay in aan wax natiijo halkaasi lagu kala tagin isla markaana ay aqbali doonin in ay Daadmareer sheegato natiijada ciyaarta galabta halkaasi ka dhacday